عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, let him who believes in Allah and the last day speak good, or keep silent, and let him who believes in Allah and the last day be generous to his neighbor, and let him who believes in Allah and the last day be generous to his guest. Al-Bukhari and Muslim. waxaa laga wariyey Abu Hurayrah, eebbe ha ka raali noqdee, in rasuulku naxariis Allah korkiis ahaatee, inuu yidhi: ruuxii rumeeyey eebbe iyo maalinta aakhiro wanaag ha ku hadlo ama ha iska aamuso. ruuxii rumeeyey eebbe iyo maalinta aakhirana ha xurmeeyo jaarkiisa. ruuxii rumeeya eebbe iyo maalinta aakhirana ha xurmeeyo martidiisa. waxaa wariyey Al-Bukhaari iyo Muslim.